السلام عليكم وولالكن عبد المجيد. maanta mawduuceena waxaan kaga hadli doonaa waxbixinta. inta aynaan mawduuca u guda gelin waxaan kaa codsanaynaa inaad kanaalka subscribe ta saarto si ay nagu noqoto dhiirigelin. ku soo dhawow. dhaqanka waxbixintu waa astaan wanaagsan oo lagu yaqaano dadyaga waxbixinta u saaxiibka ah, sidaas darteed ayuu Alle weyne isugu magacaabay inuu yahay mid deeqsi ah. wuxuu Alle inoo ballan qaaday markasta oo aynu gacanteena u fidino si aynu wax u tarno qof aan waxba haysan uu inoo soo gadaal marinayo waxaynu bixinay wax ka khayr badan. aayadda cadeynaysa arrinkaas ayaa ah a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wamaa anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khayrur raasiqiin. bisha Ramadaan ee aynu ku guda jirno waa bil acmaasha wanaagsan ee aynu sameynay la bilaabayo. waa bil ay mudan tahay in aynu naxariisano oo aynu wax aad awoodno ugu deeqno oo aan siino dadka danyarta ah ee aan waxba gacanta ku haynin si aynu uga farxino. fadliga ay leedahay waxbixintu waxa ku soo arooray aayado iyo axaadiis aad u tiro badan. nabigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo inoo tilmaamaya waxbixinta waxa uu yidhi naartu waxay iskaga xijaaba timir jeexeedna ha ahaatee. xadiis kale waxa uu rasuulkeena maxamed ha ku yidhi kiina jiran ee xanuunku hayo ku daweeya waxbixinta. haddii aynu yara dul istaagno faa'iidooyin dhowr oo laga dheefayo waxbixinta waxaa ka mid ah: kow, alla subxaanahu wa tacaala uu ku barakeynayaa xoolahaaga haddii aad wax ka bixiso. laba, waxa aad ka helaysaa raalli ahaanshaha rabbiga markastoo aad wax bixisana waxa ay demisaa cadhada rabbiga. saddex, waxa aad waxbixinta ku helaysaa darajooyinka sare ee jannada insha allah. waxbixinta waxay kuu siyaadaysaa caafimaadka, jiradana waa ay daweysaa waxbixintu. waxaad ogsoonaatay inaad waxbixisaa keliyaata in aynan kuu faa'iideyn adduunka si ay ku badbaadayso maalin la hortaagan yahay rabbiga koonkan, tahayna maalintaasi maalin aad u adag oo naf walba dhibaataysan tahay. waxbixintu keliya ma ahan inaad xoolo ama lacag bixiso ee waa inaad samayso wax kasta oo wanaagsan. haddii noqoto xirfad aad taqaano oo aad uga faa'iideynayso dad kale, waxbixintu waa badbaado. muuqaalka xiga intaanu ku kulmayno waxaa idinku dhaafayaa sidaas iyo salaamaad.